Bismillahirrahmanirrahiim. Halkani waa kanaalka Igloon Kidmed. Maantay waxaynu ka hadlaynaa aas-aaskii ururkii Iswaayil. Haddaba maantay waxaynu ka hadlaynaa barnaamijkaasi. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar. Fadlan daawade, haddii aad muuqaalkan ka heshay, like saar si aan u soo badino muuqaalada caynkan oo kale ah. Ka hor intii aan dagaalkii labaad ee dunidu dhammaan, ayaa Ingiriisku ka adkaaday Talyaaniga sanadkii 1942 oo ka qabsaday Soomaaliya oo dhan. Ingiriisku weligiis ma samaynin wax wanaag iyo dan Soomaaliyeed ku jirto marka laga reebo ogolaashihii aas-aaskii ururka Iswaayil oo Muqdisho lagu dhawaaqay 15 Maajo 1943. Iswaayil waxay ahayd xisbi siyaasi ah oo hoggaanka u qabtay halgankii ay ka talinta ee lagu tiigsanayay madax-bannaani buuxda oo ay heleen dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Xisbigii Iswaayil oo markii hore magaciisa ahaa Naadiga Dhalinyarada Soomaalida Somali Youth Club, waxaa aas-aasay oo udubka u muday dhismihiisa 13 dhalinyaro oo ah taariikhi baaldahab ah ka galay loona aqoonsaday aabayaashii gobonimada Soomaaliyeed. Muddo gaaban oo ku beeqan 1 Abriil 1947 kadib ayaa xisbigii SYC isbeddel lagu sameeyay oo dabcan barnaamijkii, dastuurkii iyo magacii ururka wax laga bedelay loona bixiyay Ururka Dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth League. Mabaadi'da ururka waxaa ugu muhiimsanaa qodobada kale ah in la mideeyo Soomaali weyn, lana tirtiro fikradaha xunxun ee qabyaaladda iyo gobolaysiga ku dhisan, taasoo bulshada ka dhex abuuri karta tafaraaruq iyo xasilooni darro. In shacabka wax la baro loona furo dugsiyo ay aqoonta casriga ah ka bartaan. In si dhab ah loo tirtiro wax kasta oo danaha Soomaalida ka soo horjeeda ama waxyeelo iyo dhib u geysanaya. In la qoro lana hirgeliyo far-Soomaaliga iyadoo far ahaan loo doortay Cusmaaniyada oo xuruufteedu laga soo minguuriyay naqshadda Cibriyada. Xilliga ururka Iswaayil la dhisay, waxaa Soomaaliya ka talinayay maamulkii militariga Ingiriiska BMA oo ay xaruntiisu ahayd Muqdisho. Dhismaha loo yaqaanay Office Command, sida lagu yaqaan dhaqanka maamulka militari meeshuu ka jiro, waxaa mamnuuc ka ah oo aan la ogolayn dhisme urur ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed nooc kastuu yahay. Balse ogolaashihii xisbigii siyaasadeed ee Iswaayil su'aal ayaa saaran. Haddaba dad badani waxay qabaan in ogolaanshaha maamulkii militariga Ingiriisku siiyay xisbigii gobonimo doonka ee Iswaayil ay ugu dan lahaayeen ama ay ujeedadoodu ahayd sidii ay u heli lahaayeen taageerada shacabka si ay ula kaashadaan xoojinta tallaabooyinka loogu hortago soo noqoshada Talyaaniga. Maxaa yeelay Ingiriisku wuxuu qorsheeyay sii hayaasha dalka Soomaaliya. Ingiriisku si uu himiladiisa fog ugu guuleysto, isla markaasna ugu hortago culays siyaasadeed ugu yimid dhinaca ururka Iswaayil, wuxuu Muqdisho keenay 2 nin oo la kala odhan jiray Michael Maryamo iyo Alex Soles oo isagu ahaa qareen sharci yaqaan ah, waxayna labaduba ka mid ahaayeen dhalinyaradii reer waqooyi ee Ingiriisku diinta Kirishtaanka la qiimay. Waxaa sidoo kale qaaradda Australia laga keenay Master S.O. Pearson si ay saddexdaniba ururka Iswaayil ugu caawiyaan dhinacyada shuruucda, taabagelinta, fidinta xarakada iyo isgaarsiinta iyo wixii la mid. Waxaa meeshaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii oo aan uga hadlaynay aas-aaskii
ururkii SY.